waxaan u qabanay dacwad shalay go'aan laga soo saaray oo aanu ka eedanay Naciima Axmed Ibrahim oo lagu xukumay 3 sano xariga shalay runtii waxaanu BBC ka maqalnay iyo warbaahinta kaleba in dad ka hadlayay oo lahaa inanta sifa sharci darrada loo xukumay runtii inanta waxaan ku eedanay labada qodob oo nuxurhaan koobsanaya in ay faafisay warar been abuura oo ka faafisay dalka gudihiisa iyadoo oo hoos u dhigaysa gobonimada Soomaaliland waxay baraabishada ku faafisay in Soomaaliland ay kala gogoday beelaw kala jabtay gobolow kala gogoday runtii waxa kale ay ku kacday falal kullida qarnimadeena oo ay ka mid tahay in leedahay dawladda rasmiga ahayd ee Soomaaliya way burburtay marka Naciima xamar bay muddo ku maqnayd halkan ay timi sidaan hayno waalidkeedu xanuunsanaya ayay u timi dabadeetana wad qabateen xaggay waxaan ka sii deysay marka aad sheegayso xagga waxa ka sii deysay baraabishada iyo fiidiyowa waan soo bandhignay dokumentigiisii cadaymihii waxaan hayno dhan maragyadii wixii dhan maxkamadan keenay 3 lawyer baan difaacay runtii waxaan ka xunnahay shalay toole waan maqlaynay niman hadlay waxay lahaayeen dastuurka lagu tuntay dastuurku jamhuuriyadda Soomaaliland xorriyad basisay xorriyadda qowlka dastuurkeena ilaaliyay intaasoo saxaafada baa jira intaasoo telefishin baa jira laakiinse xorriyadka uu dastuurku siiyay xaynda buu leeyahay sida uu dhigay qodobka 15 xubintiisa sabrada dastuurku waxa weeye waxyaabaha qarannimada lidka ku ah xasiloonida guud iyo xuquuqda ummadaba waana gaar dastuurku wuxuu leeyahay inta wixii ka reeban ee sharciga la marinay qofku hadduu hadlo markaasi sida heedaha qolsaanku ay sheegayaan iyo dadka xiganaysaaba hadduu qofku hadal aan ficil qaadin miyuu markaasi xasiloonida uu sameeyay Axmedow qofku hadduu hadlo hadalku xaynda buu leeyahay sida uu dhigay qodobka 15 hore u sheegay waxa weeye xaqaagu ku dhamaada xaqa xuquuqda qofka ku dhamaado hadaa tira waan hadlaya oo aad tiraado Soomaaliland ma jirto oo tira hay'adaha dastuurku ma jiraan oo tiraado garsoorku ma jiro goli fulinta ma jiro goli sharci dejinta ma jirto Soomaaliland ma jirto waxaan aqbalayna ma marka Naciima ma waxaad ku haysataan gabadhan gabayada ah in ay arrimahaas u sheegtay mise wax kale jira oo ah in ay xamar joogtay oo ay aamisatay midnimada Soomaaliya runtii anagu waxaan ku haysanaa dambiga ay gashay maxkamadan horgeynay 3 lawyer baa difaacay 3 lawyer maxkamadda furan oo ummadda dhageysanayso ay ka hor difaacayeen dacwadda xafiiska xeeraantu cadaymihii uu geeyay uu ku guuleystay xaqna waxa uu leeyahay rafaaqa qaar xagay xabsiga weyn baa loo dhacay Naciima xabsiga rafaan ma ogolaatay rafaan xaq baa u leedahay sida lawyer buu difaacayaan xaqa dastuurkaasi rafaan